الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله النبتكو سوء عليي أنا بقول سوء كان ما هذا النبت قليو هي نحريس هي أمن هي دولة دنيا عافات بين السيوة ما هذا وحن مرة يصدق حياته كيف نهار كانت تقني ما أنت ولا حياته والله صعدان كيجو آد بعد وقعد ميديو هودان waxaan u maleynayaa wixii waraan sidii inaan hore u sii dhageysteen haddana waa waajib in la isu warramo marka wararku xogay ay miidiyo aad u xiisa geliyaan ay xasaasiyad u geliyaan socdaalkaan ku tagnay si ka warqabtaan waxaa martiqaad dawladda Kenya ay nasiisay oo madaxweynuhu martiqaaday si wacan markii aanu tagnay markiiba lagu baraajirin ee madaxweynaha waa la kulanay si wanaagsanna waana loo soo dhaweeyay qodobadii aanu ka wada hadalnay dhammaantood waxaanu soo galnay miidiyaha oo u aragtay waxa sharaf ah in dowladda Kenya markii u horeysay inuu hadal wada galnay ama heshiisyo aynu si wada jira u soo wada saaray communique laba dowladood oo aynu publica u soo bandhignay wixii aanu kula hadalnay qodobadiina waa wada haysaan waxaan u aragnaa inay ahayd guul Soomaaliland soo hoytay waayo dawladaha jaarka ah dawladda qura ee aynaan hore heshiisyo badan ula gelin inkastoo xiriir jiray oo madaxweynayaasheenu tageen cigaal baa tagay Allah u naxariistay oo daahriyaalaha tagay laakiin ma aynaan gelin heshiisyo waaweyn xiriirkeennuna ma xumayn oo xiriir joogto waa lahayn laakiin isdhexgal iyo wada shaqayn ma aan lahayn wixii xoogga la saaray dhinac walba waa ka hadalay mustaqbalka ganacsiga waxbarashada maalgashiga wixii la isku dhaamo dhan in la isoo wadaarsado nabad lagu wada dhaqmo geeskan oo xasarad badan ku noolahayna nabad laga raadiyo ayaan ku heshiiyay waxba warkii idinku cilmay waa akhrideen laakiin qolada jiraadku waxay iska jecel yihiin haddana inuu la meel bayr xoqanaysay tu gudaha iyo tu dibadda waxba yar xoqanayee inuu taak iska wareysana waa ogolahay marka su'aalahan diideynay way madaxweynahan su'aasha ugu horeysa ku diib akoy waxa jira qodobada la soo saaray labadii dhinac soo saartay kulkeygii waa la wada akhriyay saate qodobka itiraaf Kenya ay ka tari kartaa mise ka wada hadashay uu ku jira warashiga wuxuu kugu jira waxa laga wada hadlayaa wixii laba dal u dana maalin horena waxay weydiinayaan ma BBC mise Voice oo yiri itiraafka miyaa ka hadlaysa cid kasta inuu u tagno qof kasta oo ajnabiya oo mas'uula oo siyaasad meel uu ka hayo ay Soomaaliland aragto adigana ku dhaho qof aragto adigaagas hadda dad ku wato waxaad biirto walaad maxaa loo itiraaf waay ardayga meel tagaa wuxuu maxaa loo itiraaf waay marka dhalinyaradii imika joogtay waa saaray oo qofkii qof salaamo leeyahay ninku arko ee xil haya wasiir agaasime ambassador qof kasto Soomaaliland wuxuu ku bilaabaya Soomaaliland maxaa loo itiraaf waay marka qoladeen gawar maxaad u malay hadalka haddii aan laga bilaabin itiraafku waa quraan aan bisikii lagu bilaabay cid kasta oo tagno marka waa laga wada laakiin ma waxaad filaysaa wixii lagu wada hadlay arrinta laga yiri inaan miidiya kaaga sheego taasina waa maya koox shaqada dawladda way madaxweynaha ku weydiiyo laba su'aalood baan labada su'aalood waxa weeye su'aasha koowaad waa markii labada dawladda federaalka ee Soomaaliya wadana tagteen xiriirka u jirta diblomaasiyadda idinku Soomaaliland ahaan mowqifkiinu muxuu isoo aragtaan su'aasha koowaad talabaad dacwad bay Soomaaliland ahaan idinka gudbisay shir baana Djibouti lagu qaban doona urur weynaa IGAD ee gobolku 20ka bishan oo maxay dareenkiina ku aadan halkaana horta dareenkan ku ay la yimaadeen qofkii aan u tagnaba inay cilaaqaadka u jiraan qudhadina waxay noo fureen albaab wanaagsan Soomaaliland waxay fureen albaab yar oo itiraaf ku imanayo socdaalkeenu barno kulwan baarinba dawlad umar loo shiriyo taasay ka tagayo Afrika ku tagay dawladba way ka bixi inaguna uu degi doona anu saasaan u arkaa dawladaha iyaga xiriirka jara Soomaa inagana maxaa lagu waajiba inaanu dawladdu bal la shiro oo arrinteena kala hadlo dawlad oran kartaa ay kala hadlaan arrinteena ma jirto binaad way subaayay dawladaha waxaan ku dhahnaa ma qasabno waxaan ku dhahaa waxaanu doonahay Soomaaliland oo 30 sano jirtay oo sidaas waxaanu doonaynaa inaanu hadalno oo wixii aanu ka heshiin karnaa aanu ka heshiino
nabad ku wada noolaan ninku salaamiya diidisa marka aniga taas ay faran oo dhiibteen idinkana way farantay wariye arday baac mushtar qofna Soomaaliland xuquuqdeena caalamka waa ugu halgabaynaa qof safaarad iyo dawlad midba wax leena Soomaaliland waa tan way socotaa way dhisan tahay waxay ku leedahay wax muddo qabsan karaa kayna wax muddo qabsan karaa masalan kan idin midib ma saaray marka qoladan haddii nin walba ay ka didayaan meel waa galinaa waa ka didinaa Djibouti shirka waa igad buu ka socdaa hadda qorshaygu hore kuma jirin waxaan u maleynayaa hadii inay igad ka wada hadlayso waana dacwada qoladan geysay oo kale iyo saabsan doonta laakiin waa tagaynaa mid walba waa tagaynaa waa ka saaraynaa Soomaaliland qaadka mirogo waa ka jira oo diyaaradu ku yimaada meelaha Soomaaliland qayb ma taqaanay oo halkan Hargeysa waa ka soo degaa oo ma inaan mamnuucin qolo waliba wixii ay bushara haysay iibinaysa iyagu qaad bay haya kafee bay haya shaah bay haya xoolo waaweyn bay haya inagana wax rabo waxaan geerino waxaanu tacabno oo aynu geynal raba mal raba inaynu muranno oo muruqeena laabno waxa weeye maxaad iga iibinaysaa bay kuleeyihiin 50 milyan baan ahay dalka saddexaad ee Afrika xagga dhaqaalaha ugu sareeya lahay marka South Africa iyo laga reebo iyo Angola waa dalka saddexaad ee ugu qarisan marka anigu maxaanu geereynaa ma kaftan ma hadal ma daayir isugu faano ma gabayada hore inaga laga reebo waxaanu geereynaa dadku waxay aaminsan yihiin xiriirka Kenya ay Soomaaliland la yeeshaan dadka waaweyn taageer oo ay doonayso in Soomaaliya ay ku cadaadiso ama ay ku dhisato inka tasmiin ma ima muuqato waxay taasi u muuqataa ninka Soomaaliland la cola ee doonaya hawsha qabsanaysa inuu yareeyo hoos u dhigo waxaan qabaa inuu xiddaadiisu dheeraan doonaan oo ay ku xiran tahay hadba seen nagu fahamno iyo waxaynu kala iibino marka inaga igama aniga tooda waxay iga magala hadday sayaan laba dal bay sayaan marka tooda kama leeyahay laakiin teenu inaga wadana mudan madaxweyne magacaygu Liibaan Ismaan waxa ka socda telefishinka area hadii imika dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya ay heshiiyaan maadaama la leeyahay waxa lagu cadaadinayaa arrinta waxa lagu cadaadinayaa Soomaaliga lagu cadaadinayaa ma laga yaabaa in heshiiyo badan oo la galeen naga baxaan oo maxaad u qaadan weyday halkaad ka qaadanayso waxa la leeyahay hadii la cadaadiyaa saasay doona maxaad u qaadan weyday Soomaaliya iyo Soomaaliland oo heshiiyay meesha way ka saarayaan qodobka kale xiido oo miis waysa galaan waxaad maskaxaad soo sheegay tayar ugu sheegay حاجة في الحضر عسل waxaan ku iri arrintaas guud oo uga hadal waxyaalaha detailkeena oo sirida deega film media aan soo dhigo wax badan baan media aan ogolay adiguna aad goosheena soo baarato واي مدن مدحوينه مقعيبو عبد الرشيد عبد الواقف waxaan يا سؤال ku taxalluqda Soomaali siyaasiyiin Soomaaliland oo xilal Soomaaliland ka haya bishaayay muddo 4 sano ama 5 sano intii joogan ayay Soomaaliland cafi soo weydiistaan shacabka Soomaaliland arrintaasi waxay ku abuurtaa niyad jab siyaasigii Soomaaliya joogay ee Soomaaliland maalin walba lahaa waa qayb kamid ah Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliland ee doonaya qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland arrintaasi dhaawac bay ku keentay ka xukuumad ahaan maxay diga meel yaala siyaasiyiinta Soomaaliya taga ee haddana iyaga inta farsama soo hayaan halkan soo noqday warqadda cafiska loo fiday horta dawa sharci noo yaala qofka Soomaaliland dalka meel kasta joogo hadduu dalka dambi ka galay iyo hadduu cid dambi kale inuu dambiga cafiska weydiisto ama wixii uu geysteen laga jaro oo uu dalkiisa ku soo noqdo caalamka oo dhan wadanimada dee qofka ka qaadi kartid qofka halkan u dhashay wuxuu xaq u leeyahay in laga jaro dambiga uu galay marka sharciyadeena wax ka horreynaayo qofkii dalka khiyaameeyay in la ciqaabeeno ay iska soo galin waa sharciyad imka ay u hawlgaleen laakiin marka hore sharcigan wuxuu ku dhisan yahay in qofka Soomaaliland gafa sharciga imka aanu hayna in saamaxaad loo fiiro haddii aanu waxyaalaha qaar kood gelin dil ay ka mid tahay waxa xuduudda islaamka sharciyada islaamka lahayd marka waxaan u baahanahay raayigaaga waan u buuxaya lafteeda raay wanaagsan laakiin inaanu madahan isku raacno oo aynu sharci ka soo saarno oo halkaas ka taagna waynu baarnay oo inaan hadhowto oran waa ina hebele
وقاشي بعد ضمينته شيء هبل بعد ضمينته على سيداي إنه شرعي عام مالس كلا لبنو بحنا وأنا فكر في عنه سولويني